madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Yuusuf Yaasiin oo uu waramayay telefishinka qaranka ayaa waxa uu u soo jeediyay axsaabta qaranka ee iyagu ku loolamaya talada dalka iyo guud ahaanba shacbiga Soomaaliland in dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo maray heerar iyo maraaxil kala duwan mid kastana oo ay ku baxeen tacab iyo awoodii bulshada isla markaasina nabadda ay maanta haysanaa ay inagu taagan tahay qiime aad u weyn loona baahan yahay intaasi hareeraha laga wada joogo isla markaasina waxyaabaha ducaynaya nabadda laga fogaado isla markaana tartan nadiifa ay axsaabtu bulshada u soo bandhigaan oo ka maran erayo xanaf leh bulshada kala fogeynaya hadaladii Axmed Yuusuf Yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kamid ahaa horta waa maalin wanaagsan oo hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee joogaanba waxaan leeyahay hambaliyo marka waxaan leeyahay marka orsa dhalgeeda tagaar wax ka miisata guud ee ka muhiimsan guud hala ilaaliyo guud hala ilaaliyo talada waxaan leeyahay wadanka wuxuu soo maray jid dheer intaas oo doorasho waa tii lixaad baan filayntii la gelayo tii lixaad la gelaya intaas oo doorasho waa la soo haneeyay intaas oo dhowr boqol oo deegaanka tartamayay dhowr boqol oo wakiilada tartamayay xusb waliba soo saxay 2 xildhibaan soo saxay oo ha 82 times 3 dawa waa badweey waxa soo dhan waa la soo haneeyay nin walba Soomaaliland gacanta u saaray waxa labada tartamayay deegaanka ku tartamayay gacanta soo saareen madaxweynaha kala helay gacanta soo saareen waa la soo wareejiyay taas oo nin walba uu ka door bidaay dantiisa qaran danta guud oo ka door bidaayo waa arrin guula maanta taagantahay maanta saddexda tartamaya waa Muuse waa Faysal iyo Cabdiraxmaan horta kow idinku ka bilaaba oo dadkii la hadla dadku in loo tartamayo saddexda ninba waa saddexda Soomaaliland kursiga ninba imanayo in saddexda in labaad ma imanayo taasoo ku bishaaraysta ninba imanaya nisadada kalena waa in ninka yimaado u haneeyaan oo aan meesha aan iman jiiq iyo oo Afrika ay naga dayato waxa weeye Soomaaliland dul aan ixtiraafsanayn oo lix doorasho soo qabatay oo isu haneysay oo intaas oo deegaan soo qabatay oo ay ku sii jeedaan inay tii golaha wakiilada ay qabato oo arrinta guula weeye marka waxaan leeyahay maanta waxa la marayaa mucadabkii u weynaa oo la leeyahay Soomaaliland talo halka ma dhaafi doonta dabcan cadowgeena waa ku wiirsanaya hadii arrinkaas uu leexdo waxaan leeyahay marka arrinka la galay oo ka hadhay muddo 10 cisho ka yari waxaan leeyahay dadka wacyi geliya idinka gudoomiyaashii tartamayay u sheega qaranka in la wada leeyahay nin walba uu xaq u leeyahay cod ay uma laha cod inuu dilo cod xaq uma laha in diil daadiye xaq uma laha cod baa la dhigaya cod baa lagu ridaya ninkii cod bata soo baxaya iyaguna dadka hawsh sheegaan dadka taabacsan hawsh sheegaan inaan meesha xabad la isoo haysanay kaar la diiwaan galiyay lagu codeynayo taasoo waan ku angelinay waxaan kale aan waarinayaa dhalinyaradan dhalatay wixii ka dambeeyay koobiskaashi deemka dhalatay oo iyaguna warba aan haynba wadanka wax soo maray wadankanu dagaal ka dhacay waa la qaxay intaas oo dagaal baa dhacay dadku ciid ka qoosteen marka dhalinyaro hadii ay waxba aan ogeyn maanta uu sheegaynaa wadankan wuxuu soo maray ilaa markii 1960 ilaa maanta waa ku fi kacbahayd kan waxaan leeyahay hala baraarugsanaado dadkana hala wacyi geliyo hana loo sheego in la iska daayo xanafta qabyaalada qalaabiyeed in meel geelmayso marka waxaan leeyahay arrinkaas yaanu inaga leexanin